15 bishii koowaad 2024 waxaa maanta aynu gelaynaa maadadii 8aad oo imtixaankii raayid tijaabada ahaa waxa maanta inala jooga xafiiskii imtixaanaadka qaranka oo inooga warrami doono wax badan marka ugu horeysa waxaan idinka wacyi gelinayaa waa ogtihiin oo baryahanba siyaasad cusub baa la qaatay waa istiraatiijiyad cusub oo la qaatay oo ah imtixaanka in la idinkaga qaado dhammaan ardayda Soomaaliland jaamacadaha lagaga qaadaya ardayda haddii alla yiraahdo Soomaaliland waa la isku darayaa waxaynu haddii alla yiraahdo u diyaar garoobaynaa mar haddii siyaasadda cusub ee la qaatay innaguna waa inaynu guntiga aynu meel sare ka giijinaa guntigiis baa la gelayaa waayo mar wal oo policy cusub la dejiyo policyga sida ula jaan qaadi lahayd baa laga rabaa rag iyo dumarba waxaan xusuustaa beriyaa ka mid ah anigoo form 3 ah ayaa beriga hore shaqada qaranka waxa la geli jiray marka form 4 ka laga baxo muddo 9 bilood ah inta xalayna la yar tagaaba dabeetana maalintii dambe ay dawladii dhawaaqday waxa la yiri imika laga bilaabo jaamacadaha cidhiidhi noqday markaas amarna lagu soo rogay maalintii sidaan uga naxay ilaahun baa ogaa laakiin haddana maan baxsanin laakiin waxa weeye maalintii baa la yiri 2 sanadood baa shaqada qaranka laga dhigaya 2 years labadii sanadood baanu ka laacnay marka waxaan idin sheegayaa haddii waji cusub oo siyaasadda kolba istiraatiijiyadda waxba la durkaya oo horumarka wadanka ayaa sidan ku jira sidii hore hanbalaalaqa ahayd iyo moobilkii iyo isdhaxqaadkii iyo qishkii la sugi jiray marka cali balay halkan oo garaaco ma garanaysaa marka oo garaaco xagga loo sii yaaci jiray ee dabeeta qishka ka soo dhacaya tuulooyinka la sugi jiray waxa loo wixii oo dhan bagooda waa la laabay hargeysa haddaynu nahay inagu hargeysaynu magaalada madaxdii baynu nahay imtixaanka waxa maamuli doona jaamacadda hargeysa iyo kuwa kalaba laakiin jaamacadda hargeysa ayaa hormood ah jaamacadaha maamuli doona marka lama garanayo halkaad ku gali doonto iyo cidaad la gali doonto laakiin waxaan hubaa imtixaanku inuu noqonayo kii hore kaloon don't make a fuss haba ka biqin imikaba saas ha samaynin waxa weeye adkaysiga qofku waa sabirka iyo calooladayga marka xataa haddaad dhacdo sanadka dambe lagu celiyaa kuwii hore sanadkii hore dhacay sanadkan qaar baa ku celinaya imtixaanku kama duwana kii hore laakiin booska iyo cidaad la galaysaa inay isbedelaan ayaa laga yaabaa imika waxaan hubaa hebel iyo heblaayo ayaan u soo qaban karayaa ardayda ee helayseen huba anugu qaaran hubaa jira oo waagi bare wax akhriya oo salaada hore soo kalaha oo wax isu dhiga kuwa waan aqaana qaar meeraysi badanna waynu garanaynaa waxa weeye adigu badka iskeen fulow guuli ku dhawayda baa la yiraahdaa habiqinaadeero bismillaah waxaynu u noolnahay malaynaysan maxaynu halkan u joognaa laba arrimood baynu u joognaa halkan mid waa tii Allah oo waa cibaadadii in la inaga helo yaa loo baahan yahay cibaadada talabaad waxa weeyaan bilaadan baynu nahay inaan wax qabsano mushkiladaha inaga hor imanayaan nolosha inaan xallili karno ayaynu u joognaa inuu bilaadan nahay waa labada arrimood baynu u joognaa mid waa tii Allah midna waa tan aadamiga oo wax maxay mashaakilaadkan adduunka inaan xal u samayno wixii inaga hor yimaada waayo ma xayawaanaadka bilaadanka ayaa khaliifatul ardi ilaahay u dhibay mas'uuliyadda jinniga insiba iyo wixii kale dhulka ku nool waxa weeyaan naxariista walaynagu dhamaadayna Soomaaliyeednahay jaamacadaha markaad eegtaa mid dugsiyada sare ee adduunka nusaacaha markay cunayaan dabagaalaha bakaylaha shimbiraha waxa la yiraahdo wixii deegaanka iskuul ku nool way la quraacdaan innaga noobayna u qoran wax baa inala cunaa ma jiraan adeer wax weeyaan waynu adagnahay dabacsanaan baa loo baahan yahay aanu daadego hawshii aanu socday hawshan u socdaa waxa weeyaan in sidaa uu idiin sheegay cali balayax in sanadka wax laga bedelay nidaamkii imtixaanaadka lagu gelayay oo halkii santaradu ahaayeen iskuullada sare ahaayeen ayay jaamacadaha noqonayaan wax kale ma jiraan waa intaa uun santarkun ba isbedelaya marka maxaa santarkaa loo raray santarkaa waxaa loo raray caadooyin
qolyo hore haddaa weydiisaan jiray baa loo raray bahalkan yare moobilka laydhaa iyo ardayguna kala lumaan waa kow imtixaan tuulo laga soo diraa inuu kaasina hadho waa laba waayo tuuladana imtixaan cusub baanu u diranaa halkanna imtixaan cusub baanu ka qaadanaa meelina meel u ciirsan mayso xaguu u diray xaguusa ka diri kuu dirayase ma dhaafsan yahay halkuu diraya sababtaa maxaa kalifay waxa weeyaan ardaydii wax akhriyi jirtay ee daraynaysay waxbarashada waxaa ku dhacay niyad jab baa ku dhacay markuu hebelan waxba akhrisanayni iyo hebelayo waxba akhrisanayni gareedkii intay keenaan ay la keeneen deeqdii waxbarashada tuulooyinka inaga qaaday sanadahan tuulooyinka inaga qaaday magaaladii weyneyd ee macallimiinta ay joogeen macallimiinta ugu roon ee la bidayay macallimada la bidayay ay joogeen ayaa waxaa ka sarreeyey kuwii tuulooyinka arrinkani waa sidee baa la yidhi baadhis baa la galay in wax jiraan baa la ogaaday marka waxaa la yidhi si ardayga dadaalkiisa u helo oo cadaaladda loo sugo wiilkii iyo inantii dadaashay ay u helaan jaamacadaha adduunka ay dad waxbarasho u helaan kuwii kalena ay gradekoodii u sarreeyo ardaygu ka sarreeyey saa isku taqaanaan macallimiintu wayda taqaanaa maamulooda yaqaanaa waxa weeyaan sidaa ay u kala dadaal badantihiin in natiijada imtixaanku u kala sarrayso markaasuu ardaygaasi habbi ahaanayaa kaa dadaalay habbi buu ahaanayaa kii kalena dee waxa weeyaan isaga halku isdhigayow marka in cadaaladii la helo cadaalad haddii la waayana naxariis eebbe la heli maayo run baa idiin sheegaya haddii cadaalad la waayo oo dhulka laysugu naxariisan waayo cirkana naxariisi ka iman mayso arday ka iman mayso waad og tahay haddaad dadaasho inaad fiicashahay inaad sarraysood ka sarrayso kuwaad ka dadaalka badnayd xaqna waad u leedahay say haddaba ku suurtogelaysaa waxa weeyaan waxaa jira niman tiro yaroo aad u tiro yaroo macallimiina oo gobollada kala jooga oo xilligan imtixaanada la qaadayo bahalaa ka shaqeeya oo dirdira moobiladoodii waanu haynaa ardayda moobiladoodiina waanu haynaa waxaa la yaal wixii la isku diray 4 sano iyo macallinkii wax ku darsaday iyo ardaygii wax ku darsadayba waanu haynaa nidaamkaas haddaba si uu dumo oo cadaalad loo helo siday ahaan jireen dee wakhtiyadii hore ardayba arjigu ka sarreeyey uu ka sarrayn jiray ayaa arrinkan kalifay in jaamacadaha la geeyo oo ardaydana la isku daro imtixaanadana ay kala duwanaadaan gobollada tuuladii yareed beddelka loo qaadan jiray mid gaaraa nuu samaynay hargeysana mid gaara marka waxa weeyaan runtii waa cadaaladu u baahan yahay ardayga dadaala u baahan yahay ardayga aan dadaalayna isagu sidan u jeclaa isdhexyaacan laakiin wayse soo xidhay taasi mashaakil kalena ma jiro culays kale ma jiro imtixaanku ma adkaanayo waxa weeyaan kaa imika laydinka qaadayo taraayilkaa hadday suurto gasho 2 kaloo taraayilaa laydinka qaadi doonaa markaa idinkoo la qabsaday oo arkay ayaa gelasaankaa waayo wakhtigiinnii shahaadiga geli lahaydeen xanuunkiibaa idinka baajay oo maydaan arag imtixaan centralisra maydaan arag marka kan maanta kursi iyo miiskaa la fadhiya iyo jaamacaddana fadhiisanaysaa wax kaloo ciliiliya iyo mashaakil kaloo jira ma jiro annagu ardayda waxa weeyaan imtixaanaadku waa shaqadayadii ardayga inaan wax u sahalla mooyaane inaan wax ku adkayno shaqadayada maaha imtixaankuna maaha toojar maaha imtixaanku ciqaab maaha asalkiisa ciqaab maaha waxa weeyaan si loo kala ogaado ardaygii dadaaliya ardaydii kale waa ogtihiinoo nolosheennanba eebba wuxuu lagu xaqiijinayaa uun kii cibaadaystiya kaan cibaadaysan inaa khalaqnaahu sabiilan imaa shaakiran wa imaa kafuura waxaa la eegayaa acmaashaynu qabannay eebba ikhtiyaarkuyna siiyey dabeetana taa unbaa la eegayaa waa sidaasoo kale waxaa keliyaoo lagu tijaabinayaa in arday walba dadaalkiisa helo wax kale ma jiraan ciliili ma jiro imtixaan adkaanayaa ma jiro
kaa iskuulka wuu ka jilicsamaanayaa waxa laga yaabaa hadday inoo suurto gasho 2 jeeroo dambe in la qaado markaad muqarrarka dhammaystaan in laydinka qaado mar dhexana laydinka qaado hadday suurto gasho marka waxaan leeyahay sidaa aan ku ogaano iyo maalin wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.